gabadhan waxa ay sheegtay inay islaamtay muddadii ay gacanta ku hayeen. dhinaca kale muslimiinta Talyaaniga ayaa aad u soo dhaweeyay Caaisha. kadib 18 bilood afduub loo haystay Silvia Romano ama Caaisha waxay soo gaadhay garoonka Roma. Caaisha waa 25 jir Talyaani ah. waxa ay u shaqeynaysay hay'ad samafal oo lagu magacaabo African Milli. kooxo ayaa afduubtay 2018 tuulo ku taalo koonfur bari Kenya, meel u dhow xuduudda Soomaaliya. waxaana farta lagu fiiqayaa inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. waxaana lagu hayay gabadhan meel u dhow magaalada Muqdisho. in badan ayaa lala gurgurtamayay qolyihii haystay, balse markii la soo furtay ee la soo gaadhsiiyey garoonka Roma waxa ay diyaaradda ka soo degtay iyadoo xidhan xijaab sida idin muuqata. waxa ay si lama filaana dadkii ka soo qayb galay xafladda soo dhaweynta oo uu ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha Talyaaniga u xaqiijisay inay qaadatay diinta Islaamka, magaceedana ay u beddeshay Caaisha. laakiin arrintu halkan kuma dhammaan. saxaafadda Talyaaniga ayaa aad u weeraraysa Caaisha. sidoo kale social mediaha ayaa waxaa loo soo marinayaa fariimo hanjabaad iyo aflagaado isugu jirta. kooxaha xagjirta midigta Talyaaniga ayaa ugu hanjabay inay dilayaan gabadhan. arrintan ayaa ku qasabtay dowladda Talyaaniga inay ciidan ilaalo ah ku wareejiso gurigeeda, iyada oo cabsi laga qabo in Caaisha la soo weeraro. gabadhan waxa ay sheegtay inay islaamtay muddadii ay gacanta ku hayeen afduubayaasha, kadib markii loo ogolaaday in la siiyo buug ay wax ku qorto iyo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. waxa ay sheegtay Caaisha inay akhrin jirtay Qur'aanka, salaadan ay tukan jirtay. kadib fikir dheer, Caaisha waxa ay sheegtay inay ku qanacday diinta Islaamka, go'aanna ay ku qaadatay inay islaamto. dadka qaarkood ayaa shaki gelinaya islaamidda Caaisha, balse Caaisha waxa ay caddaysay in ay ku qanacday diinta Islaamka iyadoo inay cidna ku qasbin, rabitaankeedana ay ku islaamtay. Sto bene, per fortuna, sto bene fisicamente e mentalmente. Ora voglio solo stare tanto tempo con la mia famiglia e niente, sono felicissima dopo tanto tempo di essere tornata. Grazie. Bentornato, è vero? dhinaca kale muslimiinta Talyaaniga ayaa aad u soo dhaweeyay Caaisha, baraha bulshadana u soo mariyay muuqaallo farxad iyo soo dhaweyn ah. Assalamu alaikum Aisha, bentornata tra noi, grazie. ugu dambeyntii, sideed u aragtaa islaamidda Caaisha iyada oo lagu guda jiro xaalad afduub? maxayse kula tahay sababta ay ugu hanjabayaan kooxaha cunsuriyiinta Talyaaniga haddayba gabadhan go'aansatay inay islaamto?